أسد حاجيو يوتيوب كان سنة كي لصدق في هذا الوقت نعطيني كود وحصوق الشيء العالم حيسا السلام عليكم صاحب بيال ويلكم تو ماي يوتيوب شانل وولكن الصومالي بوي صاحب بيال بسود هذا ما أنت محل دي هاي صاحب بيال سيدا ugu jidin bay tatarka ciwaanka waxa idin sheegi doonaa ama waxaan ka falanqeyn doonaa 10 qof lacagta ugu badan ka sameeyay YouTube-ka 10 qof ka hadlaya waa Soomaalida kaliya dadkana Soomaalida YouTubers-ka 10 qof ee ugu lacagta badan qofka tobnaad oo lacagta ugu badan ka sameeyay YouTube-ka Soomaalida waxa waaye Liicato Don and All Legend Liicato saaxiib yaal bishii wuxuu ka sameeyaa lacag inta u dhaxaysa $150 ilaa $2400 bishii hadda fadlan waxa daawatay 595 qof lacagtu ka sameeyeen waxay dhan tahay hor saaxiib yaal sida ogtiin ba CBM-ka Soomaaliya aad iyo aad buu hooseeyaa I mean like heer galbeedka CBM-kooda very high laakiin CBM-ka Soomaaliya waa aad buu hooseeyaa sababtoo waxa waaye kambaniyasha investmentiga lacagta YouTube ku dhiibanaya ama artist-ka dul saarinaya ma ogolo in lacag badan ku bixiyaan dadka Soomaaliya jooga sanadkii la soo dhaafay 2021 ilaa 2022 lacag meeqa soo gashay lacag Liicato ka soo gashay YouTube-ka waxa ka soo gashay lacag dhan $1800 ilaa $28000 waxa maybe waxa iska dhahaa sanadka kale soo dhaafay waxa soo gashay lacag dhan $15000 meelahaas soo gashay Don and All Legend Dhigle axgal qorku Dhigle waa qofka sagaalaad ee Soomaalida YouTube-ka lacagta ugu badan ka sameeya sanadkii hadda bishii hadda soo dhaafay lacag ka sameeyay dhan $500 ilaa $8000 waxa uu daawatay views 2 milyan macnaheedu waxa waaye haddaan ugu dhufano CBM-ka Soomaaliya waxa lacagtu ka sameeyay YouTube-ka waxa waaye ilaa lacag $4000 dhan ka sameeyay YouTube-ka 3500 ilaa $4000 intaas ahaan celcelisaan intaas ku sameeyay bishii soo gasha sanadkii qorku Dhigle meeqa YouTube soo gala sanadkii waxa ka soo gala $6000 ilaa $96000 waxa iska dhahdaa average ahaan $20000 ilaa $25000 baa sanadkii ka soo gasha صاحب القف حيان هذا إنه هو أوغانشو عمر إنشاء نينكا وانينكا Soomaalida loogu jecel yahay I mean wuxuu soo gudbiyay ama wuxuu mataqaan YouTube ku soo bandhigay wuxuu sameeyay educational content haddana aynu lacagta Ogansho ka sameeyay YouTube-ka bishii meeqa waay bishii waxa ka soo gashay lacag dhan $555 ilaa $8700 bishii hadda fara waxa daawatay 2.1 million views oo macnaheedu waxa waa ilaa lacag $4200 camal buu YouTube ka sameeyaa aynu sanadka hadda soo dhaafay YouTube meeqa ka soo gashay Ogansho waxa ka soo gashay lacag dhan $6500 ilaa $100,000 haddaan eegna celcelis ahaan lacag $30,000 ama $35,000 dhan ayaa ka soo gashay sanadka hadda soo dhaafay Ogansho YouTube-ka qofkan xig waxa waaye The One and All Legend saan ma yahay insaan yahay arrimaheena waa nin aad iyo aad loo jecel yahay waa legend YouTube-ka wuxuu ku jiraa almost 12 sano meelaas aan jeclahay oo wuxuu bilaabay waxaan xasuustaa 2012kii buu muuqaal duub jiray YouTube arrimaheena waa legend sida wada ognahay meeqa ka soo gashay bishii YouTube lacag ma ku qabtaa lacagta uu YouTube ka qabto arrimaheena bishii waxa waaye $683 ilaa $10,000 baa ka soo gashay views-kii u daawaday bishii hadda dhaaf waxa waaye wuxuu ka helay 2.7 million views haddaan ugu dhufano CBM-ka Soomaaliya waxa waaye waa lacag dhan $4800 ilaa $5,000 meelaha iska dheh $5,000 iska dheh buriyaan arrimaheena haddaan eegno sanadka hadda soo dhaafay lacag meequu ka sameeyay YouTube-ka lacag wuxuu ka sameeyay $8,200 ilaa $131,000 ayuu ka sameeyay YouTube-ka celcelis ahaan u dhigmato lacag $35,000 ilaa $40,000 lacag u dhaxaysa buu YouTube ka sameeyaa Don and All Legend King CK waan wada ognahay waa YouTuber-kii soo koowaad oo Soomaaliya oo reaction iyo waxa sameeya oo 1 milyan gaarsiin wada ognahay lacag meequu ka qabtaa waxa laga yaabaa inaad isdhahaysiin maxaa CK waxaan ka sugnay top 3 ama top 4 maxaa kaalintu soo galay hadda lacag meequu ka qabtaa YouTube-ka CK wuxuu ka qabtaa $770 ilaa lacag $12,000 inta u dhaxaysa bishii hadda soo dhaafay meeqa u daawatay views meequu helay waxa u daawatay 3 milyan haddaan ugu dhufano CBM-ka Soomaaliya meeqa waay lacag dhan wuxuu ka qabtaa $6,000 ilaa $6,500 meelahaas ka qabtay YouTube-ka okay sanadka hadda soo dhaafay YouTube-ka meeqa lacag ka qabtay King CK lacagta ka soo gashay YouTube-ka waxa waaye $9,300 ilaa $150,000 inta u dhaxaysa celcelisaan haddaan dhahnana waa lacag $40,000 meelahaas ilaa $38,000 inta u dhaxaysa Dirsla Cabdi
meequu youtube meeqaa kasoo gashay bishii waxaa kasoo gashay lacag dhan $760 ilaa $12,000 sababta waa is leedihiin CK baa ka koray Dugsiga Cabdi maxaa u soo kormaysa waxa waaye CPM ka haddaan eegno Dugsiga Cabdi waa very high oo maybe waxaa laga yaabaa bisha views u daawato waxa waaye 3 milyan haddaan eegno lacagta ka qabto waa lacag $7,000 ayuu ka qabtay sanadkii meequu qabtaa sanadkii lacagtu qabto waxa waaye $9,000 ilaa $145,000 inta u dhaxayso qabtaa oo taas cilaysan haddaan eegno waxa waaye $42,000 ilaa $40,000 King CK bay sameeyeen actually haddaan eegno qofka afraad waxa waaye the one and the only legend Sharma Boy waa fanaanka koobaad oo soo galay listigeena bishii hadda soo dhaafay YouTube-ka Sharma Boy meequu ka sameeyay wuxuu ka sameeyay lacag dhan $2,800 ilaa $45,000 ayuu ka sameeyay waa lacag aad u badan ma sha Allah views meeqa u daawadeen views waxa u daawaday 11,322,000 oo u dhigmata haddaan ugu dhifano CPM-ka Soomaaliya meeqa waa ilaa lacag dhan 25,000 meelaas bishii maybe 22,000 inta u dhaxaysa 25,000 iska dheh haddaan eegno Sharma Boy sanadka hadda soo dhaafay YouTube-ka meequu ka qabtay YouTube-ka meequu wuxuu ka sameeyay lacag dhan 34,000 ilaa $550,000 inta u dhaxaysa lacagtu ka sameeyay waa isleedihiin ma lacagta intan laga YouTube lagama sameeyo YouTube haddaan kugu dhaho Sharma Boy sanadka hadda soo dhaafay lacagtu ka sameeyay $70,000 way ka badan tahay ima aaminaysid laakiin wax walba waa kan analytics ku sheegaya xaqiiqda ah lacagta dhabta ay ka soo gashay YouTube-ka Sharma Boy sanadka hadda soo dhaafay 2021 YouTube wuxuu ka sameeyay lacag dhan $70,000 lacag dhan ka sameeyay bishii waxa soo gasha lacag 20,000 ilaa 22,000 inta u dhaxaysa ma sha Allah lacag aad u badan waaye one and the only legend Asad Hajiyo haddaha subscribers haddaha Asad Hajiyo YouTube-ka sanadkii soo dhaafay 2021 waxa soo gashay lacag u dhaxaysa 37,000 ilaa $600,000 inta u dhaxaysa haddaan eegno celcelisahan meeqa waaye Asad Hajiyo sanadkii YouTube-ka wuxuu sameeyaa ma aaminaysaa lacag $100,000 ilaa $80,000 inta u dhaxaysa aska dhaha $80,000 ka sameeyaa ma aaminaysaa haddaha waa YouTuber-ka Soomaalida ugu jecelahay waaye walaalkii Asad Hajiyo Soomaali badan baa ku jecel hawrar music production waxa waa heeso duuduuba bishii YouTube lacag ku sameeyay waxa inta u dhaxaysa $5,300 ilaa $85,000 lacag u dhaxaysa ku sameeyaa bishii hadda soo dhaaf meeqa u daawatay waxa u daawatay 21 milyan haddaan ugu dhufano CPM-ka Soomaaliya meeqa ma taqaanaa CPM-ka Soomaaliya waxa lacag $30,000 meelaas ilaa $35,000 hawrar bishii wuxuu ka sameeyaa lacag $35,000 ka badan ka sameeyaa sanadkii meeqa ka sameeyaan eeg sanadkii lacagtu ka sameeyo waxa waaye 64,000 ilaa 1 milyan inta u dhaxaysa ka sameeyaa celcelisaan meeqa waaye celcelisahan waxa waaye half million maybe 400,000 bishii sanadkii inta soo gashay marka hadda sanadkii hadda soo dhaafay 2021 lacagta YouTube ka helay waxa waaye 400,000 oo YouTube ka helay hadda waxa waaye kaalinta koobaad yaa u malaysaa inuu kaalinta koobaad ka jiro kaalinta koobaad waxa waaye Waqal Studio inaad taqaanin baa laga yaabaa waana YouTuber-ka Soomaalida ugu subscribe-ka badan oo 1.5 milyan oo subscribe ku haysta Waqal Studio hal qof maahan waa 3 qof Khadar Waqal iyo laba wiil oo kale 3 qof ay ku yihiin meeqa ka soo gashay bishii waxa ka soo gashay lacag dhan $6,000 ilaa $93,000 haddaan eegno celcelisahan bishii soo dhaafay meeqa views u daawatay waxa u daawatay 23 milyan haddaan ugu dhufano CPM-ka Soomaaliya meequu ka qabtaa bishii wuxuu ka qabtaa $50,000 buu ka qabtaa bishii ma aaminaysaa waa analysis wax walba meesha ku yaalaan haddaan eegno sanadkii la soo dhaafay 2021 meeqa Waqal Studio meeqa YouTube ka qabteen waxay ka qabteen lacag dhan $70,000 ilaa 1.1 milyan ay YouTube ka soo gashay sanadka waxay ka qabtaan $600,000 YouTube Soomaalida lacag badan baa laga qabtaa ninka ugu badan oo Waqal Studio ma sha Allah saaxiibayaal waxaan filayaa muuqaalkan daawashada muuqaalkan aad ku raaxaysatay haddaad soo gaadhay daawashada muuqaalkan ilaa dhamaadka waxaan ku leeyahay subscribe aan naga hilmaamin muuqaalka like noo saar aniguna walaalkiin soo gacan qabta yaa xoogaa subscribe ta waxaan igu cimaamada waxaan kaga tegayaa muuqaalka xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatu dhammaantood ina jecla guys